Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabay hal arin inaan idin sheego oo macallimiinta dugsiga marna waalidiinta u sheegeen. Halkaas arin waxay tahay waa inaad caruurtaada bartaa suura Faatixa before madrasa inay bilaabin ama dugsi inay bilaabin ka hor suurada Faatixa inaa barto waaye. Sababtoo ay tahay waxa waaye mar walba suuradaas Faatixa ayaga aqrinayaan ajirka ka helayso waa ajir aad iyo aad u weyn insha Allah. Mar walba ayaga salaad tukanayaan ajir badan ayaa ka helaysa adduun iyo aakhiro. Laga yaabaa caruurta inay dugsiga joogaan oo ayagana sii baraan arday kale macnaha oo mar walba macnaha group share work inay sameeyaan oo ardayda kale oo suurada Faatixa aqoon inay sii baraan waa laga yaabaa ajirkaasna adiga ayaa helayo. Sababta macallimiinta dugsiga idin sheegan waxay tahay waxa macallimiinta dugsiga jecel yihiin caruurta markay dugsiga aadaan oo suura Faatixa ay aqoonin oo ayaga baraan oo ajirkaas ayaga helaan ay rabaan macnaha competition ajir between parents and kids competition ajiro oo ka dhaxeeyo macallimiinta iyo waalidiinta. Marka ogow suura Faatixa inaa barto caruurta si aad ajirkaas ugu hormarto macallimiinta. So share and subscribe my channel for more things that I need to share with you. Inaa share to subscribe sameyso si aan idin la wadaago waxyaabo badan insha Allah. Bye.